nolosha ogeysay sheekadan fanka oo ka bixiyo oo ka digtay gaarigaas camal ah magarad hadda naftirkeeda ma ku jiri waan ku jiraa macnaha nala malaa'iktu yusalluna cala nabi ya ayyuha alladhina aamanu sallu alayhi maanta waxaa isla socnaa anigii walaalkayga yar taariikhda xaalkayga adoon waraysan xogtayda adaa markiiba meesha saarno camal video waa arkay maanta gabar walaaltinimo u damqatay walaalkeeda ku dhehaysa live-ka ka bax qadarkeeyo horta walaalkeena Allah caafiyo markii la dhahayo xumaantaada waxay dhibaysaa qofka walaalkaada ah been daawade sidaad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay bal waa fanaanka la leeyahay qadarkeeyo oo maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada ee barta social media aragtidiisa ama gebi ahaantiisaba laga waayay si aan kula wadaago xoogaasi xoga sira fadlan nagu soo biro janaalka subscribe dhow gambaleel ku fur muuqaalkana like talac wixii fikraad ka qabtidna qaybta commentiga noo la wadaag fanaanka la leeyahay qadarkeeyo oo bariyaha bulshada maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada laga waayay aragtidiisa markii ugu dambeysay marka uu hays soo qaaday qadarkeeyo oo la sheegay dalkaasi Kenya in uu ku sugnaa oo hadda la sheegayo in uu xanuunsan yahay ayaa live soo galay qadarkeeyo oo live-ka marka uu ku jiro dadka qaarna in ay sheegeen in uu cabsan yahay oo asigaba maalkiisa joogin oo daroogo uu cabsan yahay dadka badankoodna ay sheegeen in ay dad la xiriireen qadarkeeyo u dhow qadarkeeyo la sheegay maadaama social media laga waayay in uu xanuun dartiisana ugu baqnaa barta social media baraha bulshada meel walba uu ku leeyahay aragtidiisa loo waayay dadka qaarna ay sheegeen qadarkeeyo in la sixray oo dayaxdal nuursha sixray haddaba hadalka dad badan ay isku raaceen iyo dad qadarkeeyo asxaabtiisa qaaliga oo la sheegeen in ay dad la xiriireen la joogaan qadarkeeyo ayba sheegeen in uu qadarkeeyo maalmihii ugu dambeysay aad uu u jirana xanuun la soo darisayna uu la jiifay markii ugu dambeeyay hadalkiisa uu baraha bulshada zaid u qabsaday ayaa qadarkeeyo markuu ogaaday in ay baraha bulshada asxaabtiisa iyo dadka taageeriisa aadka u jecel ay loo sheegay in uu qadarkeeyo oo social media in ay ka waayay markay ogaadeen wixii ku dhacay iyo wax kalena ay kala ogeen qadarkeeyo oo live soo galay dadka qaarna ayba sheegeen qadarkeeyo in uu xaj iyo meelahaas aaday fanka Soomaaliyeedna gabi ahaan sidaas ugu baxay qadarkeeyo oo markuu live-ka ku dhex jiro marna uu leeyahay fanka waan ka baxay marna waan ku jiraa dadka qaarna oo dadka caanka baraha bulshada oo muuqaaladiisa soo qaatay falcelinna ka sameeyay ayaa waxay sheegayaan in uu qadarkeeyo uu cabsan yahay uu miirkiisana uuba joogin dad caanka ahna baraha bulshada waxay sheegeen qadarkeeyo in uu jiran yahay xanuunna uu iska hayo xanuun daranna uu la jiifo maadaama markuu live-ka ku jiro qof jiran codkiisana ay tabcaan yahay ishiisana ay dheer tahay dadka qaarna ayba ku doodayaan xaaskiisa in ay xaas wanaagsan ahayn maadaama qadarkeeyo oo xanuunsan ay baraha bulshada live-ka ay dhex keentay dad jecel qadarkeeyo ay leeyihiin live-ka iska xir walaal waa jiran tahay waa ku jeednaa ilaaha ku caafiyo oo qof familkiisa ka mid ah sida uu qadarkeeyo haya hadda ka baxa uu leeyahay xaaskiisana ay canaananayso ay ag fadhiso kama bixi kartid live-ka anaana ugu taagalay ay leedahay in uu soo fadhiisto maadaama muuqaalkaas xaaskiisa ay ku leedahay la soo qaatay dad badan oo baraha bulshada caanka ahna ay dhaleeceynayaan qoftaani xaas wanaagsanna ma aan ee qadarkeeyo waxaa u fiican in uu iska furo dadka qaarna ay leeyihiin baraha bulshada oo hadallo badan laga keenay qadarkeeyo oo dhankiisa markuu ka hadlay fanka in uu ku baxay iyo inuu ku jiro dadka qaarna hadda ay sheegayaan qadar inuu xanuunsan yahay in uu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed ducadooda iyo in ay u soo duceeyaan
muuqaalka xiga ayaa ku kulmi doona. Wixii fikri iyo aragti aad ka qabtidna qaybta commentiga noo wadaag. Sidaas iyo mac salaama, nabadgelyo.